gobolkii waxay nagala jooga xogayihii xogayihii gobolka waxa jooga sidoo kale hay'adihii kale ee daneynayay oo ay ugu horeyso FAO waxayna la joogo injineero iyaguna khubaro ka yimi Turkiga marka dhamaanteen waxaynu isku dayi doonaa balanta inaynu shirka kaga wada faa'iideysano sidii aynu u lafaguri lahayn dhibaatooyinka iyo xalalka hayno iyo sidii xalal waara oo inta ka sii qoto dheer loo baadi dooni lahaa waxa inoo daadihin doona qaybta prestationada khubaro runtii aad aqoon ugu leh dhinaca qaboojinta iyo waxa ay iyo qaboojimaha baraf dhaliyaha iyo cold storage iyo waxyaabaha soo dhan waxaan rajaynayaa in midhadhal uu noqon doono waxayaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub iyo sidoo kale xogayaha gobolka Saaxil Saacad Ciise Cumar oo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay kulankan lagu lafaguraayay caqabadaha hortaagan kalluumaysatada Soomaaliland iyo sidii looga gudbi lahaa waxaana si weyn ugu mahadnaqeen wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland iyo hay'adaha iska kaashaday waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xubno iyaguna ka socday shirkadaha caalamiga ah ee la shaqeeya wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland gabagabadii waxa halkaasi isaguna ka warramay kulankan iyo waxyaabaha lagaga hadlayay muddadii uu socday agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland Dr. Faad Cabdisalaan Xasan waxaana hadaladiisii kamid ahaa Berbera waxaan u joognay inaanu ku furno ama kadibna aan ku soo gabagabayno seminar koobna aan u qabanay wasaaradahan oo ma ka helinay hay'adda Fire Fishing iyo midowga European Union ka oo isku gareynayay hawshan tababar ku saabsan sidii loo heli lahaa dad xirfadlayaal oo hadway beeninkeeda ilaahay wax ka qabta baraf dhaliyayaasha iyo qaboojiyayaasha ay u baahan yihiin kalluumaysatada reer Soomaaliland waxaad ogtihiin in doorka ay leedahay ama kaalinta ay kaga jirto in kalluumaysatadu helaan mar walba shay ay ku qaboojiyaan ama baraf ay runtii helaan taasina qalab ay u baahan tahay qalabkaasuna haddii cilad ku timaado iyo haddii ay u baahdaba in la hagaajiyo wuxuu u baahan yahay dad xirfadyahana ah oo xirfadii aqoon u leh marka maanta halkan Fire Fishing barnaamijkan ay qaban qaabisay wasaaradda iyadoo la kaashanaysa waxaan iskugu yeernay dhalinyaro injineer ah oo marka aqoonisa wadaarsi ku saabsan sidii loo soo saari lahaa jiil marka iyagu kaalintii dayactirka iyo wax ka qabashada runtii qaata